Degmada Shervoy ee magaalada Tromsø ee waqooyiga dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in qof lagu mindiyay. Dhaawac culus oo mindi loogu geystay ayaa ka dhacay degmadaas, waxaana booliska lagu soo wargeliyay xilli subaxnimo hore ah. Dhacdadan oo ka dhacda mid ka mid ah guryaha ku yaala degmadaas, booliska iyo hay'adaha gurmadka degdega ah oo si dhaqso leh goobta ku gaaray ayaa lagu soo waramayaa qofkii dhaawacmay in gargaar degdeg goobta loogu fidiyay, isagoo dhaawiciisa cuslaana si degdeg ah isbitaalka loogu soo qaaday, iyadoo dhaawiciisa lagu soo qaaday mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopterska, kuwa oo ay leeyihiin hay'adaha caafimaadka. Bukaankan tooreyda sida xun loogu dhaawacay ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Tromsø, halkaasoo dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku ay la tacaalayaan. Booliska ayaa ku soo waramaya in ay baaritaan xooggan goobta ka sameeyeen, waxa ayna intaa ku darayaan in qofka lagu tuhmayo in uu mindiyay ama uu tooreyda dardaray qofkan dhaawaca ah ay soo qabteen booliska, haddana ay gacanta ku hayaan, su'aalana laga weydiinayo sababaha ku kalifay in uu qofkani toorey dardaro ama mindiyeeyo. Taliyaha howlgallada booliska Robin Ocean ayaa isagu ku waramayo in ay bukaankan mindida la dardaray ay si degdeg ah ambalaasta helicopterka ah ugu soo qaadeen isbitaalka magaalada Tromsø, halkaasoo lagu dabiibayo. Waxa uuna taliyuhu intaa ku daray in aysan garanayn oo aysan hadda qeexi karin heerka uu dhaawiciisu gaarsiisan yahay iyo halista nafeed ee uu ku jiro bukaankan la dardaray tooreyda. Taliyuhu waxa uu intaa ku daray in ay hadda bilaabeen baaritaan xooggan oo ku saabsan kiiskan iyo waxa ku kalifay qofkan wax mindiyay ee ay soo qabteen iyo xiriirka kala dhexeeya qofkan la mindiyay. Waxayna sheegeen boolisku in ay kiis ka fureen, haddana uu baaritaanku bilow yahay, wixii cadeymo iyo faahfaahin dheeri ahna ay dib ka bixi doonaan. Halka warka kuwiisa ugu door karoor oo idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.